شيء ما تيدان مقابو موضن فرمرسي xaflad si weyn loogu taageerayay maamulka cusub ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hague ee wadanka Netherlands iyadoo xafladaasina ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Holland oo uu horkacayay Axmed Injineer. xafladda ayaa intii ay socotay waxaa markaasi kasoo qayb galay waxgarad culimaa u diin siyaasiyiin iyo waliba aqoon-yahano Soomaaliyeed kuwaasoo dhammaantood u riyaaqay qaabka madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabay General Mungab oo markaas uu arkay madaxweynaha inuu wax badan ka qaban doono dhinaca amniga iyo waliba dhinaca cadaaladda. dadkii xafladda kasoo qayb galay ayaa waxa ay jeediyeen khudbado si aad markaasi loogu taageerayay maamulka cusub ee gobolka Banaadir oo uu hogaaminayo General Mungab isla markaasna waxaa si weyn loogu riyaaqay halkaasi waxqabadkii maamulka uu hogaamin jiray Tarsan. dadkii xafladda ka qayb galay oo khudbadaha halkaasi ka jeediyeen hadaladoodii waxaa ka mid ahaa waxaanu furan doonaa xafladayadii maanta aan isugu nimid waa maalin sabti ah taariikhdan ay ku baagan tahay 22 bisha March sanadka 2014 goobtu waa magaalada Danxaq xafladuna waa xaflad si heersar loo soo agaasimay isla markaana lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho General Hassan Maxamed Xuseen Mungab. sidoo kale waxaa lagu soo go'tinayaa xafladda gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahna duqii hore ee magaalada Muqdisho waa Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. xafladdan waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Netherlands ku dhaqan. waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha munaasabadani oo si heer sare u soo camiray hoolka xafladdu ay ka dhacayso isla markaasina aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan caawa waxyaabaha halkan lagu soo bandhigi doono sida khudbadaha iyo weliba sugaanta. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saxaafadda qaybaheeda kala duwan oo iyaduna maanta inala joogto sida telefishinka qaranka Soomaaliyeed Somali National TV. saaxiibayaal anigu waa idin xiriirin doonaa sidoo kale xafladda intay socon doonto. xafladiyadii way noo furan tahay waxaanu ku furan doonaa aayadaha Quraanka Kariimka waxaana u yeerayaa Cabdisalaan Nuur Geesay si uu inoogu furo aayadaha Quraanka Kariimka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أما بعد ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون
موضوع هو إن حوالات كهر للربي وعن قصبنا لنا صوغ بصدو والدالي dadkuna waa dhafaqansan yihiin wax badan oo mawaadiicana waa laga hadli doonaa waxaan ku soo gaabsanayaa khudbadii jirso caawa mawduuc oo ku saabsanayd taageeridda gubernatoriga iyo duqa magaalaha cusub in lagu taageero kii ka horreeyana lagu sii sabuutiyo aniga mawduucaygu marka maanta wuxuu noqonayaa in cadaaladda iyo shaqada ay qabanayaan nafteedu aan kala tala baxsho waa lala taliyaa dowladaha oo ra'yi waa la siiyaahe waa rabay laakiin hadda waxaan ku kuusayaa warkayga inaan duceyno oon u duceyno in alla wax la qabto waa dad caalimiin oo anugu kalsoonahay mas-uuliyadda loo dhibay inay qaadi doonaan markaan duceynaynana dalkoo dhan iyo madaxda dowladoo dhammaan u duceynaynaa ee gubernatoraha keligiis haddaan u duceyno ku filnaa mayso laakiin idaa dacowtum facamimuu wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaad ducaynaysiin caam ka dhiga marka ugu horraysa waxaan u ducaynaynaa dowladda oo uu ugu horreeyo madaxweynaha mudane jamhuuriyadda soomaaliga madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo hoggaan dowladeed alla uga dhigay waxaan u ducaynaynaa ra'iisul wasaarihiisa cabdulweli sheekh waxaan u ducaynaynaa ra'iisul baarlamaanka jawaahiri oo nin casiiza ah kulligood acizaa waxaan u ducaynaynaa wasiirada dhan iyo wasaaradaha dhan iyo dowladda dhan waxaan u ducaynaynaa dalkoo dhan in ilaahay israac iyo barwaaqo ku soo rogo ilaahay tiisaa ahaa karta annagu awood ma lihin kadibna waxaan u ducaynaynaa gubernatoraha magaalaha cusub oo xilka uu hadda haayo in alla la qabto asagana aan ugu ducaynayna madaxweynahan xasan sheekhana wuu ducaynay allaha waafajiyo waxaana idiin sheegayaa nin madax naqday oo xagxagasho huraaya ma jiro waxaa la yidhi geedka geedaha u dheer shimbir xaarkeedaa ku yaalla ragga ninka wax dheerna xagxagasho doqoneedaa ku taalla qof kasta oo website wax ku qori karta dowladdaas inay wax ka sheegtay ku joogtaa xilmi iyo dulqaad iyo sabar allaha ku arsuqo dowladda wax qabad allaha ku arsuqo dhulka aan joogno il raxmadeed allaha ku soo fiirsho ilaahow dhulkaan joogno il raxmadeed dhulka soomaaliya il raxmadeed allaha ku fiirsho ilaahay haddou il raxmadeed umad ku fuursho wax dhibaaya ma jiraan ilaahay caradiisa ha naga kor yeelo dhulkana il raxmadeed allaha ku fiirsho soomaaliyana galbeed iyo bari iyo koonfur iyo waqooyi iyo bartamaha qulubtooda burxad alla isu mariyo allaahumma anta qulta wa qawluka alxaq low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim nabigayna calayhi salaatu wasalaam ayaa la yidhi maal adduunka inta taal haddaad bixiso dadka quluubtooda isuma keeni karin anigu laakiin allaaha laakiin ilaahayaa allafa isu keenay bayna quluubihim dadka quluubtooda ilaahay ha qadiro inuu soomaaliyo qalbigooda isu raxmad gelshay isu raxmadaan isjeclaadaan dhulka barwaaqada ku jirtana allaha ka soo baxsho xirka daruurta ku taalna allaha noo da'sho ummaddana allaha isjeclaysiiyo
عدلية مركز رحمة إلهي كتمارا دولة هذا عادل نقطه ولا عدالة الله سمايو وحاد كرنا غني سعادة إلهي قال يا رحمة الله إيمانه هدي الله في صدور dadka qaladka wadanka ku dhex sameynaya hadaan laga qabanin wataquu fitnatan la tusiibanna alladina zalamu minkum khasa ilaahi ninka fasahaada wada hadaan gacanta laga qabanin kaligiis masiiba irka haday ka timaado kaligiis ku dhicmayso wadanka dhamay ku dhacay marka wadanka cadaaladu waa qasab waxay sabab u noqotaa wadanku inuu wax qabto waxna loo qabto marka ummadda ammaankeeda haddii la soo celsho nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi rabbi ijcal haadaa baladan aaminan ilaahow magaaladan mako aamin horta ka dhig bismillaahi rahmaani rahiim anigoo ah Naciime Maxamed Muxyidiin halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Dr. Cabdullaahi Cabdiwali iyo gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Jawaari anigoo halkan hadalkayga anigoo ku hadlaya magaca gudiga iyo qabanqaabada xafladan halkan waxaan halkan taageero iyo hiil iyo hoobale ugu muujinayaa gudoomiyaha cusub oo dhawaan loogu magacaabay gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Generaal Xasan Maxamed Xuseen Muungaab kolay hawshan ku taal ma aha howl yar waxaan ilaahay kaaga rajaynayaa inuu ilaahay kugu gudub galo marka hore anigoo fikradeyda ka hadlayo oo ah guddiga qabaqaabada dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan wadanka Holland waxa halkan ugu hambalyeynaya gudoomiyaha cusub gobolka Banaadir oo duqa magaalada xalfadan taageerada hiiliho waa la garab taaganahay waxaan jecelnahay gudoomiyaha waxtarkiisa iyo dadaalkiisa seer sare mid lagu yaqaan mid ka fiican inuu qabto ayaan jeclaa hambalyaan dhaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وحالي هذا عبد القادر جمعة محمود وحانا هاي قبقابضي حفلنا قبقابنا وحانا سود وينينا أما سيس دقوتينينا إن قبرتور هني هوري وحانا سود وينينا قبرتينا هنا عصب موجودنا منقاب marka hadda shaqo xoog leh baa hortaal oo wadankii waa ogyahay xaaladihii nabadii iyo xeerka aad maanta u taagay waxa soo gaarsiiyay kii asaga ka sii horreeyay tarsan waan ugu mahadcelinayaa Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed soo qaban qaabisay xafladan quruxda badan ee maanta halkan ka socota iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan aan kala socnayn ee ka soo qayb gashay rag iyo haweenba sida ay yihiin waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa waa xaflad laba ujeedo leh labada ujeedo waxa waaye gudoomiyihii gobolka Banaadir ee hore Bastar Xasan sawoodtiisii iyo soo dhaweynta gudoomiyaha cusub Generaal Muungaab anaga kulligeed intaas marka aniga horta hadalka ku dheeraan maayo kaliya waxay ahayd inaan xafladan muxuu ahaa soo dhaweyntaas yarta aan ka sheego laakiin waxaan ku darsanayaa waxaa la yidhi inkastoo nin geesiya rag geed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban guri oodi maayo marka waxaa waaye gudoomiyaha cusub waan ognahay kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo hawshiisa iyo sidoo wax u maamulo inay tahay meel nin aad ugu wanaagsan muxuu ahaa hawshiisa waxaa kaloo jira gudoomiyaasha degmooyinka 16 iyo taliyayaasha booliiska iyo nabad sugidda dhammaantood waa hal tiim oo ujeedadoodu ay tahay nabadgelyada iyo horumarka wadanka inay ka shaqeeyaan marka waxaan leeyahay ilaahay hawshiina ha idin fududeeyo waxaadna tihiin hal tiim oo wada shaqeeyo annaga diyaasbarada dibadda haddaan nahay wada jirkiina iyo shaqadiina iyo hawsha ahaysaan waan ku faraxsannahay inta dhimanna inaad dhammaystaan idinkoo tiim oo isla shaqeynaya ayaan jecelnahay gudoomiyahana waa u hambalyaynaynaa waxaana leenahay hawsha weyn dhammaystirkeeda tarsan baa soo biloobay oo meel wanaagsan buu soo gaarsiiyey adigana waxaan rajaynaynaa halkeeda inaad ka sii wadi doontid oo aan ognahay in kartideeda lana inaad tahay waana kugu hambalyaynaa
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سلك هديه إلى يوم الدين. marka hore waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo guddiga sharafta badan ee xafladda qaran ee caawa halkan ka dhacaysa soo qabanqaabiyey Soomaali isugu yeeray si aan u soo dhaweyno gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane General Mungab markaasna u sugootino gudoomiyihii hore ee runtii wax badan ka qabtay gobolka Banaadir mudane Xasan marwooyin iyo mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. run ahaantii General Mungab waa mudan yahay in xafladan loo sameeyo iyo wax ka badan. waxaad ogsoon tihiin in shaashada caalamka gudaha iyo dibaddaba xaflado badan loogu sameeyey. taa macnaheedu waxa weeye Mungab wuxuu ku soo qabtay hawl qaran ayuu ka soo qabtay ciidanka aan ogsoonnahay waqti aad u adag, waqti sharciga la baalmaray, waqti dhibaato badan dalka ay ka jirto, waqti sharci darrada sharci ay noqotay ayuu ciidanka qaranka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka hawl la og yahay aan wada ogsoonnahay ku soo qabtay. sidaa darteed waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa in hawshaan loo igmaday oo ka soo bixi doono waan ugu hambalyaynaynaa. runtii waxaa muhiim ah shacabka Soomaaliyeed haddii uu yahay kan gudaha ku jooga waxaan codsanayaa inaan ismaqalno. shacabka Soomaaliyeed haddii uu yahay kan gudaha jooga iyo diasporahaba inaan la shaqeyno gudoomiyaha cusub maxaa yeelay caasimadda waa qalbigii Soomaaliya. haddii ay hagaagto dhibaatada Soomaaliya waa dhamaanaysaa. sidaa darteed waxaan mar kale leeyahay aanu la shaqeyno haddii aynu nahay diasporaha, haddii aynu nahay shacabka Soomaaliyeed ee gudaha ku jiro. waxaan aad iyo aad mar kale ugu hambalyaynayaa gudoomiyaha cusub kuna sugootinaynaa gudoomiyihii hore. waxaan leeyahay mar kale aan u mahadceliyo guddigii xafladdan soo qabanqaabiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم. صومالي أنا وأنتو صومالي عايش راحضو صومالي هم يودو صومالي هم بوليستو أنت أسكندم وحن كعوي هرت الديار ما أنا راي والله قال لكن واقف بحايا دي الله يبو saaxiib bayaal marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan soo gudbiyo hambalyo iyo bogaadin ku saabsan soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka Banaadir iyo sagoontiska gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. waxaan kale oo u hambalyaynayaa ammaanna u soo jeedinayaa walaalahayga isxilqaamay oo suuro geliyey xafladda tan iyo inaannu kulligeen halkaan isugu nimaadno. aad iyo aad bay ayaguna u mahadsan yihiin. marka aynu leenahay taageero waxa weeye haddaannu nahay annagu reer Holland waxaannu caan ku nahay qof kasta oo Soomaali ah oo jaga muhiima loo magacaabo waannu taageernaa annaga oo aan midabyada dadka qaarkii ay fiirfiiriyaan aan fiirfiirinaynin. qofka mas-uulka qaran ah marka mas-uul qaran la yidhaahdo wuxuu matalayaa ummadda oo dhan wanaag inuu ka samayn doono gobolka Banaadir.
saddexda kaliya oo loo baahan yahay oo gobolka Banaadir looga baahan yahay runtii cadaalad baa looga baahan yahay يعني ظلم بدن بقى كتير مركا إنان كلا عشوائي إنان رنتو يسوع شايفنا حدود بدن بقى كتير أو غفور بابا تابنا إسا وحن بريئة ناقض كايسا فلنتيسا إيوه كهذا الكيو كهذا الله وكتاجرينا وحن كلا وكتاجرينا nabadgelyo meelaydan ka jirin nolol ma jirto meelaan cadaalad ka jirin nolol ma jirto meelaan wanaag iyo hogaamin iyo nidaam ka jirin nolol ma jirto inta baanu ku taageeraynaa ilaahayna waxaan ka baryayaa ilaahay inuu xaq waafajiyo ugu duceeya qofka mas'uulka ah ummadda ka dambaysa ayaa wax ka dhigi kadha waxna u dhimi kadha aad iyo aad baan u mahadsantihiin walaalayaal aad baan u mahadsantihiin inaan meeshaan mahadcelin u sameeyo ciddii xafladdan quruxda badan leh soo jeedisay soo qabanqaabisay isla markaasna waxaan kaloo mahadcelin u sameynaa intii ka soo qayb gashay oo iyagana isu soo xilqaamay una yimid xafladdan qiimaha badan leh oo lagu sagootayo guddoomiyihii hore laguna soo dhawaynayo guddoomiyaha cusub محمود أحمد ترسن وحو قبتي وحاد وبضن وحانا قرد دونتو بارالك الذهب كتاريخ دمو قرب وحان كرون لا يهي وأن أولا دردار ميا جنرال مونغاب إنو ميشي سيكسي وضو وانا كسر دويهنا وانا تهنيدنا وحانسا تهنيد كدرا او ان كسر جيدها وحوايو دعاء waxay tahay in ilaahay la garab galo ballamadii uu qaaday maxaa jiro waxaan ognahay ballamada uu qaaday waxa ugu weynay cadaaladda iyo nabadgelyada waxaan ognahay nabadgelyaduna inay u baahan tahay juhdi badan cadaaladuna ay u baahan tahay far adeeg inay u baahan tahay maxaa jiro cadaaladdu waxay qabtaa cadow badan cadowga badan oo cadaaladdu qabto waxaa ka mid ah qof wuxuuna xaq u lahayn rabo inuu qaato qof waxa uu xaq u lahayn heesto oo inuu sii heesto rabo marka waxaan ugu gubaabaha ilaahayna aan ka tuugaa inuu ku fududeeyo xilka bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaan rabaa inaan halkaan idinkaga soo jeediyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Netherland ama Holland salaan iyo hambalyo aan idinkaga shido waddanka aan ka imid Sweden waxaan rabaa inay iga guddoontaan marka hore marka labaad waxaan rabaa inaan idinla wadaago hambalyada aad halkan ka diraysaan anigoo ku hadlayo magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sweden guud ahaan gaar ahaan magaalada aan ka imid ee Katrineholm Holland runtii farxad weyn ayay ii tahay inaan xaflad aad u qurux badan halkan howlkan weyn ka dhacayso maanta inaan goobjoog u noqdo marqaatina aan ka noqdo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Netherland sida diiran ay u sagootinayaan duqii hore ee magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan una soo dhaweynayaan guddoomiyahooda cusub ee duqa magaalada حسن محمد جنرال حسن محمد حسين مونغاب
qof walba oo xil loo dhiibo wuxuu qabtaa hawsha uu qabtayna wuxuu u qabtaa hawsha loo dhiibtay qayb ka mid uu qabtaa runtii kursigana waa wareegaa oo qofna joogto uma hayo marka tarsan wuxuu soo gaarsiiyey meel fiican ee hawl laga sii wadi karo marka runtii tarsan waxaan leenahay hawl fiican ummaddaada u qabatay taariikhdan way ku qori doontaa ummadda Soomaaliyeedna baaldaha ayaa ka geli doontaa taariikhaheeda generaalka cusub ee hadda xilka loo dhiibay asagana waxaa laga sugaa kursiga oo maanta loo dhiibay ma sii joogi doono muddo gaaban oo jooga ama muddo dheer markuu xilka dhamaado waxaan rajaynaynaa in sida tarsan maanta loogu mahad celinayo la leeyahay tarsan waa mahadsan yahay hawl fiican uu qabtay isagana mid la mid ah inuu ummadda ka kasbado si fiican oo sharaf leh ummadda inuu soo gudbiso maalintuu kursiga banaynayo imaanshaha General Mungab kuma imaan si fudud wax badan la deedeeyay oo la lahaa kursigan yaa u qalmo duqa magaalada yaa iskale wareega ay joogtaa runtii madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed xukuumadda federaalka Soomaaliyeed dib badan iyo baaritaan badan ayuu wuxuu soo xulay General Mungab waxa lagu soo xulay Mungab ma ahayn ayaa taqaan yaa ku yaqaan kuma imaan wuxuu ku yimid maxaa taqaan iyo maxaa karti leedahay waa sharaf runtii waxa la yiraahdaa carabta waxay tiraahdaa الرجل المناسب في مكان المناسب marka runtii wuxuu ku yimid الرجل المناسب في مكان المناسب بسم الله الرحمن الرحيم walaalyaal jaalayaal dhammaan ragga iyo marwooyinka marti sharafta culimaadudiinka bahda saxaafadda abwaanka weyn Jaylaani fanaanka qiimaha iyo qaayaha badan waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal waxaan si aad iyo aad idinka mahad celinayaa si gaara guddigii qabanqaabada oo nagu casumay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan oo lagu soo dhaweynayo mudane General Maxamed Xasan Mungab oo ah duqa magaalada Muqdisho isla markaana ah gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan ku soo dhaweynayaa si sharaf leh qiimo leh ayaan ku soo dhaweynayaa magacaabida uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed magacaabida generaalka wuu asiibay waan filahayaa xilkuna waa dimuqraadi waa wareegahayaa waxaan aad iyo aad raalli ugu nahay haddaan nahay shacabka reer Holland raalli baan ka nahay go'aankaas iyo magacaabitaanka duqa magaalada Muqdisho waxaa lama ilaawaan ah in sii sagootino mudane Maxamuud Nuur Tarsan oo asagana howlkarnimo muujiyay waxaan run ahaantii aad iyo aad ugu hambalyaynayaa xilka culus ee loo magacaabay General Maxamed Xasan Mungab ayaan ugu hambalyaynayaa in Ilaahay u fududeeyo waxaa weeye ma yara hawshu 23 sano ayaa waddankaani dhibaato ka soo jirtay ninkii xil loo magacaabo hambalyo maahan laakiin waa in loo duceeyo oo la yiraahdo Ilaahay ha kuu fududeeyo hawsha culus oo lagu xilsaaray walaalkeen Mungab waxa weeye nin howlkar ah inta yaraydo howlaha ku jiray ummadda Soomaaliyeed ama dhinaca ciidamadii qalabka sida uu ka shaqeynayay howlkarnimo muujiyay daacadnimo muujiyay cadaalad buu muujiyay waxaan ka codsanaynaa maantana inuu cadaaladii iyo howlkarnimadii iyo aqoonta dheer uu leeyahay inuu maanta ku dhaqan geliyo magaalada Muqdisho oo dagaalo iyo dhibaatooyin ay ragaadiyeen waan ogahay wax badan baana kala socdaa mudane Mungab inuu howlkarnimo
iyo karti iyo aqoonteeda leeyahay wuu ballan qaaday maalintii xilka loo dhiibay inuu magaaladan ka nadiifin doono ragga xadjirka ah ee dhibaatada culus ku haya ummadda Soomaaliyeed run ahaantii waan filayaa inuu ka bixi karo hawshaas culus waxaan kaloo ka codsanayaa inuu hawshaas sii ambaqaado halkii uu ka wada mudana tarsan oo howlkarnimo muujiyay run ahaantii quruxda iyo bilicsamadii magaalada Muqdisho soo celiyay inuu halkeedii ka sii wado wuu gaarsiin doonaa waan hubaa laakiin wuxuu ballan qaaday inuu marka hore nabadgelyada iyo amniga soo celiyo markuu soo celiyo inuu horumarkii iyo waxyaabihii tirada badnaa ee loo baahnaa inuu qaban doono waayo meelaan amni lahayn meelaan nabadi jirin cidina wax kama qaban karto sidaa darteed waxaan hubaa in Mungaab uu yahay ninka kaliya ee ka bixi kara hawsha culus oo maanta ee loo xilsaaray waxaan u sheegayaa anoo ku hadlaaya magaca diaspora Holland waxaan u sheegayaa inaan diyaar la nahay inaan taageerayno hawshaas culus oo loo dhiibay ama loo igmaday hiil iyo hoobana inaan la garab taaganahay taasaan ballan qaadaynaa ma iga aqbasheen waxaan idinka codsanayaa dadkiinaan sharafta leh inaad iga ajiibtaan codsigaas aan idinka codsado magaciinana aan ku qaaday xilka ma iga ajiibteen in aan hiil iyo hooba la garab taaganahay mudane waad maqlaysaa waxaan rajaynayaa inaadan ka walwalin innaba ha la ekaatee in aadan is oranin garab istaag iyo taageero ma helayo waa diyaar baa lagu yahay waanu ku taageeraynaa hawsha culusna allaha kuu fududeeyo magaalada caasimadda ee Muqdisho dhibaato badan bay soo martay magaaladu waxay hogaaminaysaa 18 gobol oo soo jireen ah 18 gobol magaaladii Muqdisho ayay sugaysaa ilaa ay ka dhaqan gasho oo nabadi ka hirgasho ayagiina ma dhaqaaqi karaan sidaa darteed waxaan ka codsanayaa caadi ma tihid caasimadda kaliya ma tihid inaad u hoggaansato 18 gobol inaad hoggaankoodii noqoto inaad tusaale tusto oo aad nabadda iyo sharafta iyo haybadda ay lahaan jirta inaad soo celiso ka gadaalna aad u gudubto gobolladii goboladan federaalka ah oo naloo tilmaamay federaalkii weli muusan dhaqan gelin waxaa la sugayaa dhammaan Muqdisho waa saldhiggii weeye meesha lagu magacaabay caadi ma aha mudane marka waxaan ka codsanaynaa inaadan iska dhigin nin 16 degmo ama 17 degmo mas'uulka ah inaadan iska dhigin waa inaad xilkaaga ka dhigataa inaad 18 gobol aad mas'uul ka tahay bacdama caasimadii aad ugu magacaabay waxaan rajaynayaa inay ku soo noqoto Muqdisho sidii ay ahaan jirtay run ahaantii maanta shacabka Soomaaliyeed si gaar ah haweenka Soomaaliyeed way dadaaleen intii tabara dhismo dib u dhis iyo quruxdeedii iyo bilicsameedii waa lagu dadaalay laakiin dhinacii siyaasadda iyo hogaamintii ayaa xoogaa yar naga kala daadsan waxa dhibkaan lagu sameynayeen waa nimankan afka duuban oo xagjirka ah weeye ayagana allaha soo hadeeyay baan leeyahay run ahaantii ilaa waa nin Soomaali ah meel kale uu nooga yimid ma jirto dad kale soo kaashada way jiraan laakiin walaal waxaan codsanaynaa in ayagana allaha soo hadeeyaan ilaahna oo aanan habaarin waayo hooyaa dhashay annana hooyaan nahay waxaan markay run ahaantii aan ku soo gabagabeynayaa khudbadayda aad baan idinka mahadcelinayaa dhageysigiina mudanayaal culamada dhalinyarada kulli waa salaamantiin salaam bacdigeed hadal badan ma hayo waxaanu salaamaynaa boqolkiiba 14 gudoomiyaha cusub waxaan sagootinaynaa boqolkiiba 14 ku sagootinaynaa mudana tarsan markaan laba kelmadoo kale aan ku daro tarsan meel fiican buu na soo gaarsiiyey jazaakum khayr
waxaanu leenahay mudane General Munga tarsan waxaa loo dhiibay ukun xiran oon af lahayn alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin afkeer wuu bajiyey mudane Munga adiga inta ukun oo ku taalo way ka badan tahay عمر وعودي يجري برجي هريتو هل يريدوا ليبا يريداش قال صاحب عمر كله قال وعودي يجري باقيني إنجي سوقاتي بو بحا سوقاتي بو بحا لدي مركا وكون بدن باكود دوغن وكنت أصبح كميرا بس كان دقتها الجوغا وإلمها له وهويوينكا اللي ما كنت على اللي انت محل دونيا إن أتكترته وهكذا الدنيا ضد كمان في ماشى حمر استوى درنيسا الحمد لله رب العالمين ضد بوحكة مغيه ضد كم غنايين ضد بحيس ودنا منقب وعلوي أنا وحلول دوتي وحواي عدالة سنان وعرضها ودنا مونجا وحاجة ربا سيدا وشكت أمبل وجو يقيني أمبل وجو دوتي وهي عدالة وأنا كافي لينا بل صدق وحكم غيي ومساكين تأه وحكم إذا نمان أفلاين وحكم إذا نمان ورك عن هيل كريم marka dadka waxa waaye ninkii maskiina oo waxna ka maqan yihiin anaan af lahayn inaan u kaalmayso waxa kaloo laga rabaa ninka oo miskiinka oo mataqaana xataa meesha aan soo gaari karin inaad information aad samayso oo muxuu ahayeeto wixii meelaha diliska jira laysoo warbixiyay inaad tiraahdo maadaama aad wada gaari karin sida saxaabiga inaga ka mid yahay waxay ahayd dhaqanka yaa qaday yaa quutay dadka yaa qaday yaa quutay marka anigu diintayda waxay ku saabsan tahay cadaalad la iska warqabo diriska kulli laga warqabo iyo anigu diintayda ay ku saabsan tahay aniga markaan aan ku hadlo waxaan ogahay magaalada Tanxamar la leeyahay waxaa tiinta ka noqday xafladda ayaa sidoo kale waxaa laga akhriyay taariikh nololeedka General Mungab ayadoo uu akhriyay Cabdulqaadir Mukhtaar Diinaari gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Mungab waxa uu dhashay sanadkii 1972 waxa uu ku dhashay tuulada Mungab ee degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo magaca ka soo raacay Mungab uu asiga ka dhaxlay dhinaciisa waxbarashada waxa uu ahaa mid aad iyo aad u sareysa heerkiisa waxbarasho oo waxbarashadiisa aad iyo aad ayuu u jeclaa waxa uu bartay daraasaadka shariicada qaanuunka sidoo kale Generalka Xasan Maxamed Xuseen Mungab waxa uu diyaariyay master degree shariicada qaanuunka iyo jaamacadda waxaana uu ka qalin jibiyay jaamacadda Umudurmaan al-Islaamiya Khartoum ee dalka Suudaan sanadkii markii uu ahaa 2002 waxa uu ka qalin jibiyay jaamacadda Afrika ee caalamiga ah oo laga aqoonsan yahay dunida oo idil dhinaca khibradiisa shaqo 2001 ilaa 2002 gudoomiyaha waxa uu noqday gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Suudaan 2005 ilaa 2007 waxa uu noqday bare macallin dugsiga sare ee Jubba magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Tawfiiq gudoomiyaha waxa uu
madaxweynihii hore mudane sheekh shariif sheekh xasan sheekh axmed hadal yaraan kuma jiray 2008 ilaa 2009 waxa uu noqday mas'uul sare safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan magaalada Khartoum bishii Maarso 2010 ilaa iyo Agosto 2010 waxa uu ku biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana lagu qaatay darajada gaashaanka dhexe isla markaana waxa loo magacaabay garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gobolka Banaadir markii taariikhdu ahayd 16 Agosto 2010 ilaa iyo Agosto 16 2012 waxaa loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda darajada sare ee koowaad ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed halkaas Agosto 2002 ilaa 25 Febraayo gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ayuu noqday bishii Febraayo ee sanadkan hadda ku jirno 2014 waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha waxa uu soo qaatay marxalado kala duwan oo lagu darajeynayo heerkiisa waxqabad iyo kartidiisa marka maanta halkan waxaan u taaganahay waan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada intii xafladda ay socotay ayaa waxaa telefoonka magaalada Belgiumka ka soo galay xogayaha koowaad ee safaaradda Belgiumka Cali Wolof oo sheegay in dadka Soomaalida ee degan wadanka Holland ay yihiin dad si aad ah u taageersan dowladda Soomaaliya isla markaasna waxa uu riyaaqay qaabka ay xafladda u soo qaban qaabeen iyo taageerada buuxda ay siinayaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam kulligiin sawdantii. Meebaleysi. Ani Maxamed Abuukar Cali Wo ahna مطرية قوات السفارة بلجم أنا أقول هذا ما يعيده حاول وحشرت ويكيا إلى السوق الدرو إن كستو عن روح أهان هذا الشيء روح أهان هذا السوق الدرو sidoo kale waxaa xafladda telefoonka kaga soo qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade oo sheegay in dadka Soomaalida ee xafladdan soo qaban qaabiyay ay yihiin dad si aad ah u jecel nabadda isla markaasna waxa uu Soomaalidii halkaasi ka soo qayb gashay ku booriyay in loo baahan yahay in la taageero waxqabadka wanaagsan hadaladiisina waxaa ka mid ahaa waatahay waa mahadsantihiin habeen wanaagsan habeenkan waa habeen hadiyaad u fiican jaaliyadda Soomaaliyeed ee Holland waxaan ugu maaragtay mahadinayaa uguna bogaadinayaa xafladan qiimaha leh oo ay caawa qabsadeen oo ugu talagaleen inay hambalyo diiran ugu gudbiyaan kuna soo dhaweeyaan magacaabidda duqa magaalada Muqdisho isla markaasna ah haysiin soo dhaweynaysiin xafladan qabsateen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa ka xumaa inaan idinla joogin oo aan idinka fogahay laakiin qalbigayga idinla jira waa idinla qaybsanaa waa ka qaybgalayaa waadna mahadsantihiin aad iyo aad 100% sidaasaan rabnaa inaad muxuu ahay jaaliyadaha Soomaaliyeed inay isku daydaan oo saasoo kale markii wax dalka يعني الطلابة يقعدوا يقدر يكذبوا إنه موجيان هدي سولوين تاعي سولوين تاعي هدي هذا الله فريق كلامه إن الكل موجيان مركب موجين سولوين تاع هذا موجين إنسان هنا تراجع سنتين هذه أنا نقولنا هنا اسمهم بلينا وان ذكرت الجرا وان الكلام
intii xafladda ay socotay ayaa waxaa halkaasi heeso kusoo bandhigay fanaaniinta Soomaaliyeed oo kala ah fanaanka qaranka Cabdi Baadil iyo weliba fanaanka kale ee la yiraahdo Jaylaani Shariif oo si weyn markaasi dadkii halkaasi ka soo qayb galay ugu soo bandhigay heeso wadaniyad xambaarsan oo qiiro leh. Jali